Waxaa maalintii labaad galay tababar ku saabsan u qareemidda haweenka iyo xalinta khilaafaadka oo loo qabtay haweenka nabadda ee ku nool magaalada Jowhar iyo haween ka socday Golaha Deegaanka caasimadda dowlad goboleedka Hirshabelle ee Jowhar, waxaana fulinta tababarkan oo maalintiisii labaad soconaya iska kaashanaya hay'adda FCA iyo weliba Wasaaradda Arrimaha Gudaha iyo Dowladaha Hoose ee dowlad goboleedka Hirshabelle. Haweenka ka qaybgalay tababarkan ayaa si aad ah kaga faa'iideysanaya, iyagoona sidoo kale soo gudbinaya fikradahooda ku aaddan arrimaha la xiriira tababarka ay qaadanayaan, waxaana haweenku ay sheegeen in tababarkan uu ahaa mid muhiim ah isla markaana ay baahi weyn u qabeen, iyagoona sidoo kale tilmaamay in dhowr iyo soddonkii sano aynu soo dhaafnay ee xaaladaha adag oo ka jiray dalkeena Soomaaliya in kaalin mug leh ay ka qaadanayeen arrimaha nabadeynta, xalinta khilaafaadka, iyagoona sidoo kale tilmaamay in u qareemidda haweenka ay tahay mid muhiim ah iyagana ay soo dhaweynayaan. Tababarkan ayaa ah mid muddo 3 cisho ah socon doona, iyadoona maalnimadii shalay uu u furay Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Arrimaha Gudaha iyo Dowladaha Hoose ee Dowladda Hirshabelle, Cabdiraxmaan Xuseen Cumar Wadane, Shabakadda Wararka ee Jowhar Media, caasimadda Hirshabelle, Jowhar.